بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيات كلن كسدحيو تبناد مدشة ودتشيغا هنانكا قرن دولة هوسة ودجير مدشة ودتشيغا هنانكا قرن ودجير وحسي وين ugu faraxsan yahay inuu si haboon u qabsoomay kulanka wadatashiga dib u eegista iyo dardargelinta jadwalka geedi socodka dhismaha golayaasha deegaanka maamul baahinta macadka dawladaha hoose dhaqangelinta hanaanka dhab u heshiisiinta qaran arrimaha xasilinta iyo helidda xalalka waara ee barakacayaasha dalka dib ugu soo laabanaya iyo qaxootiyada kulan hawleedkan ayaa ahaa kii 13aad ee noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho muddadii u dhaxaysay 22 iyo 5 ilaa 25 Luulyo 2019 madashu waxay bogaadinaysaa ka soo qaybgalka dhammaan ergooyinka kala duwan ee federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaalinta ay ka qaateen natiijada ka soo baxday kulan hawleedkan hanaanka qaran ee wadajir kulankan oo ka socday muddo 4 maalmood ah magaalada Muqdisho waxa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran qodobka koowaad madashu waxay tacsi u diraysaa qoysaskii dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii isxigxigay ee ka dhacay magaalooyinka Muqdisho Kismaayo iyo Dhuusamareeb qodobka labaad madashu waxay isku bogaadisay hawlaha u qabsoomay xog wadaagista dhisidda golayaasha deegaanka maamul baahinta macadka dawladaha hoose arrimaha xasilinta dalka dhab u heshiisiinta iyo arrimaha xalalka waara ee barakacayaasha iyo qaxootiyada qodobka saddexaad madashu waxay isla garatay in barnaamijka xalalka waara uu muhiim u yahay hanaanka taabagelinta dawladaha hoose qodobka afraad wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu waxay leedahay doorka xiriirinta iyo dhaqaale u raadinta barnaamijka xalka waara iyadoo kaashanaysa wasaaradaha arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada gobolka Banaadir hay'adda qaxootiga qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada qodobka shanaad madashu waxay hoosta ka xariiqday in gaabis badan uu ku yimid dadaalka taageeridda dhisidda golayaasha deegaanka isla markaasna madashu waxay ku baaqday in taageero farsamo mid dhaqaale oo buuxda la siiyo golayaasha deegaanka ee dhismaya iyo kuwa dhismayba qodobka lixaad madashu waxay bogaadisay dadaalka samaynta halbeegyada lagu cabirayo horumarinta ka socota degmooyinka ee loo yaqaano FIM ama tusmada qiimaynta nuglaanshaha iyo qaangaarnimada degmooyinka madashu waxay hoosta ka xariiqday ahmiyadda ay leedahay in la mideeyo dukumiintiyada adeega dadweynaha ee ka soo baxa dawladaha hoose ilaa heer gobol qodobka 8aad madashu waxay fariin u dirtay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ka taageera arrimaha dhisidda golayaasha deegaanka maamul baahinta macadka dawladaha hoose xasilinta dhab u heshiisiinta iyo xalalka waara inay ku shaqeeyaan mudnaanta dawladda heerarkeeda kala duwan qodobka 9aad madashu waxay soo jeedisay in la dedejiyo dhamaystirka hawlgelinta macadka dawladaha hoose si loo helo tababaro ku filan degmooyinka dhismay iyo kuwa dhismayaba qodobka 5aad qodobka 10aad aan iraahdo madashu waxay soo dhaweysay in madasha laga qayb geliyo
wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo xoojiyo kaalinta ka qaybgalka haweenka ee dhismaha golayaasha deegaanka. qodobka 11aad madashu waxay isku raacday in si wada jir ah looga wada shaqeeyo arrimaha dhisidda golayaasha deegaanka, maamul baahinta, macadka dowladaha hoose, dhabu heshiisiinta qaranka iyo xalalka waara oo aysan saameyn ku yeelan isbedelada siyaasadeed ee dalka. qodobka 12aad madashu waxay bogaadisay daahfurka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Ceel Berde, Warshiikh, Beledweyne iyo Jowhar. qodobka 13aad madashu waxay isku raacday in la adkeeyo wadaagga xogta iyo macluumaadka u dhaxeeya hay-adaha heerarkooda kala duwan ee dowladda. 14 madashu waxay isku raacday in la sameeyo guddi farsamo oo leh ujeedooyin midaysan iyo qorshe dhammaystiran oo lagu fulinayo taageeridda dhisidda iyo dhammaystirka golayaasha deegaanka. 15 madashu waxay adkeynaysaa xaqiijinta kaalinta haweenku ku leeyihiin geedi socodka iyo dhisidda golaha deegaanka. 16 madashu waxay u mahadcelinaysaa barnaamijka raadiyaha wadajir iyo howlwadeennadiisa oo had iyo jeer baahiyo guulaha madashu ay gaarto. sidoo kale madashu waxay mahad celin u diraysaa deeq bixiyayaasha iyo hay-adaha caalamiga ee kala shaqeeya barnaamijyadan. qodobka 17aad sidoo kale madashu waxay isla garatay in la qabto dib u heshiisiin bulsho iyo mid dhaqan ka hor intaan la guda gelin dhisidda golayaasha deegaanka si looga fogaado khilaaf bulsho oo hor leh. qodobka 19aad madashu waxay isla garatay in shirka xiga lagu qabto magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo. dhammaad wabilaahi tawfiiq.